وأروريه روحنا ككله هنا مجالات برعو أنه كسي شيدنا مجالات Lascanood حرون تجوبل كسول سيانو صوب بدينه شيء كذا Abdiqadir محمد jaamac وفرسما يقان دل يراه كنوا المجالات أسي إنا مري Lascanood waxay magaaladanu ka safarnay ee Burco u jirtaa masaafo ku dhow 250 kiiloomitir. Deegaana tiro badan ayaa ku yaala laamiga xiriiriya labadan magaalo. Intii aanu sii soconayna waxaanu sii marnay deegaana ay ka mid yihiin Wadaamago, Caynaba, Og, Ari Cadeeye, Yigoori iyo deegaana kale oo tiro badan. waxaanu soo gaadhnay magaalada Lascanood halkanina waa halka ay ka bilaabmayso dulucda sheekada aanu ka soo safarnay magaalada Burco Abdiqadir maxamed jaamac waa farsama yaqaan dhalinyaro ah waxa uu ku xoogsadaa cilad saarista dabka ee gaadiidka meheradan ayaana ku maamulaa hawl maalmeedkiisa shaqo Abdiqadir ayaa waxa uu halabuuray qalabyo kala duwan oo ay degtahay waqtigan in gudaha wadanka lagu farsameeyo kuwaas oo kala ah qalabka saxmadda gaadiidka kala haga oo ku xidhay mid ka mid ah jidadka ugu mashquulsan magaalada Lascanood saacad lagu kala bedelo ciyaartooyga iyo qalab kale magacaygu waa Abdiqadir maxamed jaamac waxaan ku barbaaray magaalada Lascanood waxaan shaqadeeda ka bilaabay isla magaalada Lascanood aan markii hore xirfadan ka soo bilaabay sanadkii 2004kii baan geerish walhaan engineer loo leeyahay engineer maxamed Ismaaciil Galeed oo ahaa macallinkii ugu horeeyay geerishkaas xirfadeeda ugu dhawaabaan aad baan wax farsamada gacanta u xiisayn jiray geerishkaas markasta iman jiray waan ka agdhawaa sidii baan kaga maqnaanooday shaqaalaha geerishka sanadku markuu 2010kii baan bilaabay inaan wax urin karo oo markii ugu horeysay aan isku dayay inaan sameeyo muraayad ama saacad wax la yiraahdo saacadan sportiga lagu kala bedelo waxay ahayd 2010kii bishii 12 markii koobka adduunka meelaha dhamaaday ahayd daawashada koobka adduunka daawanayay kadib baan igu dhacay soo waratay in bal wadankeena iyo dhulkeena joogno bal laga hirgelin karo qaab electric ah oo sportiga lagu kala bedelo maadaama sportina ahaa farsamo yaqaan ahaa Lascanood oo ah magaalo koraysa isla markaasna ay ku soo badanayaan gaadiidka awgeed ayaa waxa uu farsameeyay qalabka saxmadda gaadiidka yareeya traffic light-ku runtii wuxuu ahaa isna qaab aad u daruuri ah buu ahaa mar bay igu dhalatay inaan degmada traffic light sameeyo iskuusyada ugu jaamka badan markaan traffic light-ka sameeyay adigu ilaa laba isbuuc bay igu qaadatay sameyntiisa marka ilaahayna waa noo fududeeyay wuxuu saddex qabood buu shaqeynayay remote control iyo timer oo waqti ah oo dhowrkii daqiiqo mar isdiminayo iyo wax la yiraahdo iyo switch caadi ah oo badhan marna la taabanayo marna la diminayo saddexdaaba shay buu shaqeynaya marka hadda waxaan ka dhignay qaybtii waqtiga ahayd baan ka dhignay marka laamiga dib loo habeeyo oo maayirku ballan qaaday iyo dawladda hoose markaas shaqadii caadiga ahayd bilaabmaysaa oo la dheeraanayd noqonaya oo waxa loo isticmaalaya remote baa loo isticmaalaya si ayna baabuurta jaamis ku noqon intan oo kaliya kuma koobna wax soo saarkiisu balse halkan waxa uu ka sameeyay warshad yar taas oo wax la manaafacadsado ugu bedelo waxyaalaha qashin ahaan loo tuuro ee hadhaaga gaadiidka uu ka soo qaaday magaalada Lascanood taandigaas uu gurto kaasa la darayaa oo la soo qaadayaa meel baa loogu shubayaa wax la manaafacadsado muhiim ah sida daawayaasha kale cagsaaraha baabuurta baa laga sameeyaa kulay bulshada gobolka iyo bulshooyinka Soomaaliyeed ba kulay aad bay ugu bogaadiyaan oo ugu dhiirigeliyaan barnaamijyada inaan sii wado waana iga sii saacidaan inaan sii wado walow aanan helin dhiirigelin fiican oo ama qalab layla wadaagay ama haday noqoto ama dhaqaalaba laakiinse dhalinyarada iyo bulshooyinkaas ba aad bay ugu garab taagan yihiin oo falcelintooda aad bay fiican tahay waxaan ku aanweynaa balin aan dugsi farsamo gacanaan hadda gacanta ku hayo inaan sii weynayo inaan waxyaabo fara badan oo Soomaalidu ama ay samaysan jirtay ama ay samaysan jirinba inaan waxyaabihiin aan kor u qaado wixii aan samaysan jirnay inaan kor u qaadno aan dhiirigeliyo wixii aan samaysan karin ayna hadda sameeyno goobtan uu ku hawlgalay Abdiqadir waa mid kooban balse halkan waxa uu ku sameeyay ikhtirac ay baaxadiisu weyn tahay Khalid Bakeyle wararka maantii Lascanood